mayskiinku koyna doo quraan akhris oo lanka sameeyey dhulkan oo hadda fadhiyan mas-uuliyiinta hortinkusa muuqdan oon ka horreeyey suldaanka guud ee beelaha jariirweyne suldaan haaruun xaaji khamiis iyo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya xildhibaan maxamed nuur iftiin shambara iyo qaar ka mid ah dhaqanka beelaha jariirweyne ee jubbooyinka meelan laku quraan akhrisadooye oo laku da'aysadooye iyo lakarawa deegaan waana dhulbeereed iskaleta maama bilaawo matalika juma kalooya oo ah qof waayeel ah mayna go'aan ka gaartay inaad dhulje ka gadato qoomiyadda beelaha jariirweyne oo ii ka soo jeeda dhulkan iyo kayaala dhinaca waqooyi meel 1 kilomitir injirta magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka Jubbaland wakiilka dhulbeereedkan oo la karawa deegaan la ka magacaabo Kalandiima ugaas Xasan Usmaan Xasan Barfuuno iyo ka warbixiyay ujeedada ama sababta ka kalafteena dhulkan iyo kala wareegan maama bilaawo matalika juma kalooya mayna sheegay Allah wa barakatuh dhamaan sin wa salaame Soomaali bantu meel kasta san rugtan geesi ee gabarba anu way ninka si la hadlooy wakiilka degmada mase tuulada oo Kalandiima oo unruuga magaalada madaxda Jubbaland State Kismaayo Xasan Usmaan Xasan Barfuuno way ninka si la hadlooy maasha Allah maalintan ibriyahanba may ku hoolanaynay dahfurkii oo tuulada oo Kalandiima mise xaafadda oo Kalandiima qof kasta oo basarada qora oo degmadii ata Kismaayo maalintan hirgali hooleteediye inaan dahfurno sabti waliga si dambeey inaan bilaawno dhismihii cid kasto higaas boos gadati may diyaaran ayaan inay dhisadaan oo dad joog ka samatibiyaan oo meelas degan ummadan hoteelkan wada degan waldan iyo ka haysan geeg ilaa oo ma jirto baaki boos degan dhulkan dadba iska leeya warwaardiisdooy hadda belbistaawle marka ka qabado dhulkan una degana may la dhahay mareeni dhulkii dawladdu ilaa ka see LLaysan hirhirinya meel kasta macna dhaga 1 mitir ay iyo ku wareegsan dadsa una may nin kiyaale bush qoftii dhulkan askalata hadii una booshan ka dhisanaan yoob la ka dhaafay inta habada ka dhifada misla ka dhimada lahayd dad degal lahayd ilaa ka sad una may ka anay gabaad marka una maalin kasta intii dhulku daday la gabaad ka nagada fadni fikrada ka darsani in una bano beer askalata ay bilaawa matalika beertiye in una bees andeerno oo ina noo aawido sidii dugsi iyo masaajid in ay waqaf biido intii kale toon wal bees baan hayna di magajaba oo la fiiriyo $300 xoolo maan boos binti barafinti may noo siiday ala boos $300 $300 hadda hal boos binti barafinti ee meel ka degnye marka geerta tuman shan boos ama degnye kikasta abalay to meel ka dhaayal unug anta ka kaadiye dadween anta ka kaadiya kam qaasho dahgalo sanka qabsadaas ina cudurka dilaaco macna macquul xiliya roob ilaahay no amaansado ay muddo marka taas aawadiye may marka oo tafahanay maadaama wadankan ku soo bi ka shaqaal meel aawal ku soo bi bolo bertereer ku soo bi bolo wardaayl ku soo bi aw Kalandiima waanan haliyay oo la kasaw oo dhaladii shambar deegaanka dadka oo halgamaya kamid ay marka tabartayna ma dhanta inoo taala andasno sidii Siid Abdullah Xasan amal dadka loo ameeyo taala la dhisay naagto oo askarta la gawaawiyay meelan suubiyay taala hawtan kilbahoy iyo wala mid markuu tabartas mahayna inoo hadda macna odayaashayna taala on suubno diir doon bas intii ka diiraw may is afgaranay tuula aw Kalandiima lahaw inoo suubno tan markii aan saxgalo kadib badana meerabne tookal aw geedo lahaw inoo suubno haddana markii taas aan saxgalo hadii oo umrigaas ilaahay nasiyo haddana nasiib boond inaan suubno taas ka dareeran le tuulooyinka inaan magaajo badano taas dalkayna kasano taas fikrada ka kadli marka alxamdulillah maalintan meel saan ila meel beer ahayd maana meel degan mahayna mees afgarnay maadaama oo meel deegaan karabna koodi hor inaan quraan ku furno meel taasayna ulmadayna madaxdayna sare suldaan hadii xildhibaan ay inta askarani meel ya jeeni meel ku holo goorsani quraan ka akhrisani adiga iska xijaabni meeli كده مي مركز أو بوان كيجين أهتي إلى نفسيمه سبت ولي في دمبية
inaan barnaamijkaas dhan marka dhismaanka bilaawno insha Allah intaas sheegay anoo ugaas wariye Yuusuf Daabi amba telefishinka caalamiga SBTV magaalada Kismaayo.